hargeysa dhexdeeda mar haddii cumaamadii kaleeday anagu xamar baan wax ku darsanayna wallahi inaan jooglay oran karin oo billahi inaan jooglay oo garan siyaasiga wada saaqadka ee beesha dhexe cumaamada wada saaqadka ee beesha dhexe aniga iima matali karto war inaan ka yaraa shalay toole awdal joogay muxuu kor xildhibaanka aha maxaa lagu xidhay ilaahay baan kugu dhaashay in la ii sheegay inaanay Soomaaliland jirine Soomaaliya aanu ka mid nahay maxaa ka dhaxeeya war maxaa shan habeen soo jeeday maxaan calanka inta saateen iyo cidhibaan saa ugu dhalka ugu galgalanayay Soomaaliland baa dawlad noqotay oo dawladii waa horeysay aqoonsatay Soomaaliya sida Hargeysa looga dhax yiraahdaa maanta maxay ku tari calaacaliyo waan ka xumahay waa shaqada beesha dhaxweeye waan ka xun xitaa reer awdal marka hore ha iska aamuso haduu diboorintiisa iyo geesanimadiisa halka ku taagnaanayni war ninna inuu Hargeysa ka dibooriyo ka doobiyo la yiraahdo iska daayay ninna markuu boorama ka dibooriyo ka doodo dhab la yiraahdo waliba raali galin lagu qasbo oo la yiraahdo beesha la dhaxeeyada awdal iyada samaysatayba ayuu ariga ku sii daayay ariga gabigiisba biyihiiba ku muraaro dalaacana way ku gurmeen intii ku dhici weydana isaga ku guray isagoo barkadii dul taagan bay sanaad sheeda ka soo aragtay hooyaarigii me markaasuu yiri kaala ariga ara ku tusay intuu gacanta qartay biyo waa kan ariga dawo cabaya waa arigi oo barkadii lug cad wada noqdo biyo dul sabaynaya Soomaaliland way cabaysaa because Hargeysa gudaheedii ayaa siyaasigeedii iyo cumaamadeedii ay dhamaaska yihiin anagu waxaan moodaynay suumkiina loo soo galay inuu shan habeen dawaqsanayn ee madaxa dhulka lagu xoqayo dayn la aqoonsi la helay soo kan lagu leeyahay anagu xasan baan wax kala iibsan karnaa xasan baan halkan suldaanada iyo maxayga iyo oga calaamadinayna wasiirada Soomaaliland waxba kama jiraan aniga ku leh waayo mar hadduu siyaasigeedii maalintu doonaya xilka ku socdana uu dalka duminayo oo naga shalay siiraaya markuu ku socday riyaale oo lahaa magaalada Hargeysa laba dawladood ka dhigaya maantana adagtay qolada maanta joogta markay yimaanaysay wadanka inay kala gooyeen oo ciidankii kala jabay oo gaargac xiran yihiin oo wali dhinacii tagay ee wax isku ogaayeen in iyaguna muuse ka tawraan qoladaasina ay ma aragtay maamul qabsadaan maanta maxaa reer laas aanad lagu haystaa maamulkii ay ku heshiiyeen aniguna adna maamul qabso anna wadankan qabsan dawal kala joogay horta yaa la is awriin marka hore Soomaal garani marka Soomaaliland way cabaysaa inta cabitaanka ay barkada ka baxaysana wax nool hadii la helo anigu sheeko uma hayo waxa weeyaan ninka maanta Hargeysa ka dhaxla kelmadda halkan aanu xasan xaguu dadka ku wada xasan shantii mayliyan ee Muqdisho joogtay saddex buu baabiyo dhulka ku dar laba isaga u tunta ayaa ku soo haray dadka halku ku guraya ma barkad buu ku guraya anigu shanta Soomaaliyeed waa jeclaa magaalada Muqdisho waa magaalada yadii kama xumin hadii xitaa bari la nagu celiyo anagu because aanu shalay toore dawlad mid ayaa ku soo koray oo dhakhtar bilaash iyo iskuul bilaash iyo nolol bilaash ku haystay maanta laakiin xasan halku ku wado anigu garan maayo nin ilaahay ka baqayana dadkiisa horta saa uma galay laakiin waxaan ku faraxsanay dadka hawiye Muqdisho jooga haday shalay geel u qalanayeen farmaajo oo ay lahaayeen annaku farmaajo waa shisheeye in adeerkaya waa kan xaafada mariinada iyo meelaha nimka la baabiinayo waa halkii maxaa ku rageel loogu qalinayay habeenkii martay mucaaradku u hoyan jiray rugti oo dhan halku xasan ku gabado dhan bacagta u baabiyay taasi waa taa Hargeysa dhexdeeda mar haddii cumaamadii kaleeday anagu xamar baan wax ku darsanayna wallahi inaan jooglay oran karin oo billahi inaan jooglay oo garan siyaasiga wada saaqadka ee beesha dhexe cumaamada wada saaqadka ee beesha dhexe aniga iima matali karto war inaan ka yaraa shalay toole awdal joogay muxuu kor xildhibaanka aha maxaa lagu xidhay ilaahay baan kugu dhaashay maxaa lagu xidhay cid muuceebayn cid muucaayin wuxuu yiruun wuxuu ka yar falanqooday 18 May sida ay ma aragtay loo qaabilo inaanay dadkiisa u wanaagsaneyn kelmadaas oo kaliya yiri kelmadii baa tunka lagu dhigay oo la qabtay Soomaaliland naga dadka nacsiinayna Soomaaliland naga dadka ka eriyna shalay bay ahayd xildhibaana xilligii sigaayeen ahayd baan malaynay baa yiri baa leeyahay markii la yiri 18 May u soo bax buu yiri war heedhaha 26 kii way naga ciyaarnay 18 kamii reer baale maxaa ka siiyay tunkaas aan lagu dhigay 22 isho ma dheera waxna marka wataalaas aanood noo nacday dawladnimadii baan nooga tagtay inta ku joogtaana barkadaas ay ku jirtay anigu iyaan ku daba faylaa anigu miya la dhageysanaya maanta hadaan iraado wadanka ma boqor burmud wada jida war wax aniga dadkaas ka hiigalinin adu haddaad la damacday adigu la doono Soomaad garanay Hargeysa laakiin waa shalay kuwii maxaan ku yiraahday Garowe iyo Muqdisho taagna ee maanta la laha salaa martay ciidankii la laayay inuu dhigoodu warmay in laga dulbadulbo torinayo ma ku faraxsanahay hambali laha ayaa maanta hal door miiran lagu soo qoray orado baraha bulshada
maxaad bari ku hiran adaan kula hadlayaa maxaad ku hiran maxaad kan shalay toona isagu wax soo qasay markii la yiri waa hal door adna soo inaad wadada marto hal door bari ku noqoto ma mar anaga noo sheegay Soomaad garan marka anigu Soomaaliland dawladayda maanta joogta Cabdiraxmaan Garab ma hayo إد الله إد الله شقينا صن هيا أو هيا ما أركيه وهذا أركيه هالكن ماشي قلبات كوال يسكون لينيا تاد كيسلينيا يا نور حماد هيستها هذا دكتاي سيل عوح اللي بقى هذا عشور الصومال اللي لبعض وطن كلا بيليو هذا يشرنا تاد كاسي قبل كبقول كبش $1 للي مكليه كاشدا إيه هرادك إيه ما أعرف إسكولانتا تعليلانتا هيستعلش قال يا عشق الديو وحق ضد كدولك أنتي كصابحين عراري دبدها وشقة تجيبها وسمية بودنا عروتود وسميين اللي سوشيال وايو وحبل كلا جوري مايو وحويا ما أنت Somaliland عقوبتي هالكاكد على عيسية سمراء وكلا عامصي وتاجل بيت بركة قرحة والسوماليلاند لقنتيدا meel ha u toosiso oo madaxweynahan cid la shaqaysa oo shalay waxba uu qasay buurba la koray adigu hadaa taa un ku qawsho goormad wadanka horumarin waa in qoladani waxay soo samaysay wax ka duwan keento qolyihii la lahaa dadka saqda dhaxay u daataana heede aniga hadalka cad iyo wadankaygoon jecelay inuu hore u socdo meel gaadho iyo in la ii sheegay inaanay Somaliland jirine Soomaaliya aanu ka midnahay maxaa ka dhaxeeyo war maxaa shan habeen u soo jeeday maxaa calanka inta saatan iyo cirban saa ugu dalka ugu galgaranayay Somaliland ba dawlad noqotay oo dawladii u horeysay aqoonsatay Soomaaliya sida hargeysa looga dhax yiraahdaa maanta anagu xamar baan wax la dhisanayna xasan baan wax la dhisaynaa shalayna hoteelada ugu waaweyn hadda jumbo halka ku socoto baris fiican baa madar lagu saariyo wala faan laakiin hadda halkan xadiis la soo fadhiisato harraatiba kugu dhicdo shalay qosolka ka dhacay hoteelada meedo geedadu adigoo cumaamada ciidankaaga jabkiisii marxaati ka ahay mar hadda dadkaaga sayay adigoo aad martay dhinac raacday maanta maxay ku tari caliyo waan ka xumahay waa shaqada beesha dhaxweeye waan ka xun xitaa aqoonsigaas aad oranaysaa bariina la siiyay waan ka xunahay aad oranaysaa maba miyir qabnaba Soomaad garani marka waxa weeyaan buur madowna horta hadaladiisu kuwii hore way ka soo dageen oo imkoon buu odayaho boqorkii la sheegayay uu yahay laakiin haddana تشحول وين نوضم بس لكن أنا وحبضن أوران مايه لكن كلمة أنا فدية ما هاي أنا وشنها بين صوت هذي إن لا يراهضوا حمر بين كنا حمر محب بنا لقى هايستا ما هنكر هذا يوان راعينا ونا بسبور كده بوان كوبوفناي ورك خير أوضل marka hor hayska aamusa haduu diboorintiisa siyo geesinimada salka ku taagnaanin waarnina inuu hargeysa ka dibooriyo ka doobiyo leeyna iska daaya ninna markuu boorama ka dibooriyo ka doodo dab leeyla waliba raali gelin lagu qasbo أنا لا يراد بيش على الحياة أوضل يدا سمي ستيبا لا يراد مركو نرى أوضل الله حلو وبريء ده نرى اللي قلنا بهيو وحلا يرى فاضم يديك أوضل لده وحكوا كريواي والحسب سميست والحسب أتكو قرقرتان تان أوضل يسأل لي سميست ويسميسن وينا حين كل مية نص نقنية بركة ده سأل لقوة الشراي قطع هنا هذا الضغط هاي بقدر